toddobada nasabka ku xaraama waxa weeye qofka asalkiisi iyo faraciisi iyo intii ku xeernay asalkiisi iyo faraciisi iyo xawaashidiisi dar isaga ka sareeyo asal ah iyo qaar ka farac oo isaga ka sii farcamaya iyo qaar hareeraha ka xiga waxaynu uga jeednaa kitaabku waa laga yaabaa si kala firirsan inuu isagu u sheegay laakiin si aynu isu dul taagno ayaynu uga jeednaayo qofka xifdinteedu ay ugu koobnaan karto toddobada xagga nasabka waxa weye qofka hooyadii hooye marka la idhaahdana ayeeyooyinkiina way soo gelayaan ayeeyoo dhami waa hooyo hooye waxaa la idhaahdaa cidda adiga ku dhashay ama dhashay dadkii adiga ku dhalay waa hooyo waa inantaadii macnaha kuwa ay sii dhashay ee awowga aada u tahayna iyaguna waa inantaadii inankaaga kuwu sii dhalayna waa inantaadii manaa qofka adiga kaasii farcan kuu sii dhalay waa inantaadii marka qaacido caamo noocaasa bay leedahay ka saddexaad waa walaashaa saddex dhinacba way noqon kartaa tii a isku aabiyo hooye ahaydeen iyo tii a isku aabbo ahaydeen iyo tii a isku hooye ahaydeen mid waliba waa walaaluun waaya waxaa ku xigaya edadaa iyo habaryartaa iyaguna waa 2 5 weeye halkaas waxaa ku xigaya hablihii aada abtiga u ahayd iyo hablihii aada adeerka u ahayd macnaheed waxa weye hablahaad abtiga u tahay waa kuwa ay dhaleen hablaha walaalaha tihiin hablahaad adeerka u tahayna waa kuwa ay dhaleen inamada walaalaha tihiin soosamaan idhaah magacaas ooma naqaano hablaha raggaa walaalaha tihiin ay dhaleenna waxaa la idhaahdaa adeerbaad u tahay hablaha ay sii dhaleen hablaha walaala ahaydeenna waxa loo yaqaana abti baad u tahay 7 aynu sheegnay inantaadii hooyada walaasha eda iyo habaryaro hablihii walaalaha lab iyo hablihii ay sii dhaleen dumarka walaalaha tihiin waa 7 7daasi xagga nasabka ayaa guurkoodu xaraam ku yahay wadadaa tol tihiin oo isku nasaba tihiin laakiin markaad sidaa usii egto qaybina asalkaagii weeye oo xagga asalkay kasoo jeedaan qaybina aday kaa farcamayaan qaybina hareerahay xigaan oo si unbay xawaashi u yihiin kugu xeeran waaye